jibriil oo maxamed ninka la yiraahdo ilaahay ajri xasanaad ka siiyo the Ohio State University ayuu wuxuu ku kaydiyey manhajkii hore ee Soomaaliya manhajkaasoo la qoray 1972 dowladdii gacaanka ay qortay waxaa moodaa wax cajiib ah oo aan arkay baan rabaa inaan idinla wadaago ardayda markii nidaamka waxbarashada waddanku uu toosan yahay sideedaba dadku meesha waddankaas wuxuu soo saaraa dad tayo leh saan filayo Soomaali grade 6 kaana ku dhufanaya waxaan idin tusayaa kaliya contentiska uu ka kooban yahay ii sheeg uu ka kooban yahay syllabuskooda waliba luqadda Soomaaliga ah okay waa fasalka 6aad af Soomaali halka korsa uga jeedaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta xafiiska manhajta haye marka meeshaan u socdo waxa weeye manhajka waxa la barayo maalinta macalinka sheekooyin oo kale iyo abaal xumo laakiin halkaan u socdo waxa weeye afwan warqad qoraal waxaan u socdaa 10ka shanaad ayaan u socdaa warqad qoraal qaabka waraaqaha loo qoro hadda fiiri waxyaabo basic weey ardaygu waa 6aad haddaan aadna halkaa hadda kuwa jaamacada dhameeyay ayaanan aqoontaasi lahayn waa page-ka 15aad waxaanu tegaynaa page-ka 15aad iyo dulqaata okay 12 13 waa kana warqad qoraal okay muxuu ku leeyahay arrimaha u baahan xirfad curis waxaa ka mid ah waraaqaha kuwa saaxiibtinimada kuwa shaqada waxaase jira inuu wax dhibaato ah ka arki doonin ruuxii dhisi karaya xubin wanaagsan waxaa loo baahan yahay inay ujeedadu warqadu iyo habka ay u dhigan tahay iswaafaqsanaadaan hadda u fiirso ardayga waxaan la barayo waa arday 6aad waa inaad si habboon u madaxaysaa xidhaa ood u saxiixdaa markaa dabadeed ayaa lagu sheegi karaa warqadda mid fiican ama habaysan okay warqadda markaad u samaysid madaxyo oo ciwaano madaxyo u samaysid oo aad saxiixdid oo aad nadaamisid ayaa markaa waxa lagu sheegi karaa in warqaddu mid fiican tahay ama habaysan tahay okay warqadda saaxiibtinimada sida dhabta ah waxa weeye sheeko ka socota dhinaca qofka qoraya oo qora taas oo loola dan leeyahay inay farax geliso qofka helaya waxay noqon kartaa hadal ama tacbiir shakhsi oo wax badan lagala soo bixi karo kuwa shaqaa jira marka ma raba inaan dhammaan wax meeshan ku qoran idin wada akhriyo laakiin waxa aad ii soo jiitay qof 6aad oo la barayo sida warqad shaqo loo qoro iyo sida warqad saaxiibtinimo loo qoro iyo asluubta oo ay hormuud u tahay dalku markuu wadan uu leeyahay dawlad wax nidaamisa wax jihaysa qorshaysa waxbarashadooda dadku waxay soo saartaa dad tayo leh aqoon leh xaqiiqatan markaan ka hadlo wadamada reer galbeedka ayo hadda hormaray ama wadamadan Asianka ayo waxbarashada hadda ku hormaray u maleynay ardayga fasalka 6aad dhigta in loo dhigo waxaan iyo wax la mid ah haddaba waxa mahad ka gaartay mudan ninkii ku kaydiyay manhajkan inta badan manhajkan ayaan soo xigtaa markaan casharada YouTube-ka diyaarinayo kale haddaan u baahdo inaan si waadix ah Soomaali ahaan u helo xataa waxa ku jira dictionary Soomaaliya ku jiro English Soomaali oo aad iyo aad waliba scientific ah insha Allah waxaan filayaa inkaasi duco mudan yahay ilaahay ajri xasanaad ka siiyo aad u mahadsantiin